ugu dambeyn filimkii Kill ahaa ayaa soo gaadhay isagoo Soomaali ah. Filimka Kill film imaamadiisa la haysan karaya ma ah. Balse intaan guda galin filimkan waxaan idin codsanayaa saaxiibayaal inaad muuqaalka inoo share gareysaan. Haddii aadan horey noo soo join karayna aad nagu soo biirtaan. Filimka Kill film imaamadiisa la haysan karaya ma aha. Muddooyinka mameenan arag film lamid ah filimka Kill oo kale bilow ilaa dhammaad sheekadu way ku yarayd. Waxay ahayd qaxar iyo dagaal soconaya gudaha tareenka iyo naxariis la'aan meeshaan jehenjeh iyo orojinaac iyo ma olin. Rahantii dadka olosha jiraan filimkan ma daawan karayaan sababta in badan waxaa arki doontaa qof madaxa Bruce laga dhuftay madaxiisa yahay ama loo bujuqiyey. Rahantii filimka waxaa lagu tiriyey nooca loo yaqaano rated R. Rated R waxa weeye carruuri waxaasi ka kaalay dadka waaweyn xataa dadka olosha jilicsan filimkan ma daawan karayaan. Yacni haddaad olosh jilicsan tahay filimkaagii ma aha. Iskaga gudub ka seexo filimkan ma daawan karaysid sababtoo ah dhiigga iyo cunfigu aad ayuu ugu badan yahay. Filimkan rahantii aktarka matalaya waxaa la yidhahdaa Lakshi waxaa la sheegayaaba fankaba inuu ku cusub yahay balse waxa soo dhigay wacdaro aan inaba caadi ahayn. Wacdaro xataa la filayn in aktar yar oo bilow ah uu saas kale uga soo muuqan karayo. Atashada laftigeedu way cusbayd waxay ahayd filimkeedii ugu horeysay ee miyadu mas-uul ka noqoto ama atasho ka noqoto balse iyada laftigeeda jilinkeeda aad ayuu wanaagsanaa. Lakshi horey waxaa uga soo muuqday filimo isagoo aad u da'yar laakiin filimka waa filimkiisa ugu horeeyey isagoo atoore ah ama hoggaanka ah uu ka soo muuqdo. Filim rahantii ahaantiisa la haysan karaya ma ahayn. Sidoo kale odayga weynaa Ashish ahaa oo in badan ku naqaanay filmadii sagaashameeyadii ayaa isaguna qaybka ahaa qaybta filimka. Filimka aniga shakhsiyadeeda waxaan ku qiimeeyey 9/10 maadaama sheekadiisa aad u yareed laakiin waxaa sheekadiisa inoo buuxiyey actionka quruxda badnaa ee lagu soo matalay ama lagu soo gudbiyey filimkan gudihiisa. Ku malayn maayo in muddooyinkan aad daawan doontid film sida Kill oo kale ah marka la yidhaahdo dhanka actionka. aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad nagu soo birteen sidoo kale muuqaalkan gaadhsiin asxaabta jecel filimada actionka ah.